بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا مقالة مقدشو قارهان اسبتالك رجب طيب أردوغان كسوة بوقني أبوان محمود عبد الله عيسى سنقو لغو قاري اسبتالك إمي كانت شيفة إنكستو كعبنا يو حنونو إلهي وحن كبر إنه إلهي وحن كبر إنه عافمات لما يستران سيو أبي ورثات مرحوم السرادر أنت يا أخي وروح أحد قلعا حنوني معي معي الكاس أنا ورقة الصبح الكاس قلقوا إلى الصبح فيكي واحد ليس قبت هاد اللاعي عنتي واقر لو شهادتي وياي بالقدرة تأوي وري سبعة واحد ثلاثين من ودك وأويا من أواب حنوك إلهي بسيء الله إلهي وكل نفط هيه لكن المدمح نقصيدا لا تختار مياه نفطيدا الله أكبر إلهي واتقى إنك أبوت يسوكري باقية أنتم الكيسينة إن الدموع هدوكتا إذن قهد ذلك استغفر الله يا الله توبة الرب إن أدشك تيسته فيها أقول فيه مركوا على ترطان حتى لك رأي معيش طيّر سكراتك نوي واحد فوقي تنك بلي تأتي الله يعلم بثنوية قاعدية أختريه طيع طيع الخل تيالمو يعني مركا وحوي والوضري على ما شاء الله الله يطريه marka waxa weeye dadweyne badan baa lahayd oo yani suugaantaada dhageysan jiray daawan jiray dadka fariinta ma u diraysaa waa maxay dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u dirayaa ilaahay nabadgeliyo baayida ilaahay ka qaad dhibaatada lagu salaaban ku salaadan Allah ka qaad maxaan ayaa lagu marwada odayga magacay waxa la Khadiija Boqran marka ayaan dhaweed baa waxa ka soo baxay nabarkaas ka soo baxay kalinkilada isbitaalkan kana waa la qalay nabarka infection buu sameeyay infectionkii waxa uu taabtay kaliyaha marka alxamdulillah ilaahay buu marti u yahay saas xaaladiisu tahay marka sonkor buu leeyahay sonkortaas marna kacaysa marna degaysa marna qandhada qabanaysa marna way degaysa marka waxa weeye naftiisa iyo teena mid horreyn doonta ilaahay baa og marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ka baryaynaa meel kasta ay joogaan inay ducada iyo faatixada ilaahay noogu baryaan ilaahay nagu soo kaabaan marka waa xaaladdiisa sida weeyaan insha Allah kamarna caadi iska iyadoo qofka normalka ah wax ka halaysanaan jirin marka qandhadu qabatana waxaad moodaa inuu xoogaa maaragtay marka dad badan baa jira ummadda Soomaaliyeed ugu badan tahay dad badan oo ehelaa jira dad badan oo macaarifa jira dad badan oo fanaaniina jira ubad badan oo dhalay baa jira caruur awogo iyo tiro badan baa jirta marka cid walba waa la socodsiinayna ilaahina waxaan uga baryaynaa in booqashada dambe insha Allah sida ka fiican oo caafimaad qabeen lagu soo qataa waxaad ka hortaa xukuumad sheeganay dhinacyo kala duwan oo garab istaagay waxaan jeclaan lahaa inaad dhinacyada ka xustay sidii idin garab istaagay waxaan loo garab istaagay oo ugu weyn marka ugu horeysa madaxweynaha ummadda حسن شيخ محمود يمرودي سه مروة قمر أيون هذا وعب أبال علينا أو أبالا دوبين أو دمانين أنو هنا يجا هالكاكو هيسا يجا هالكاكو هيا يجا كسور دونا يجا خرج كسبتال كي دريال كي سبقة مركب بن آدم وحلقها لو حويا مهد علي قفن بن آدم كم مهد علينا إلهي وما مهد عليه مركب واحد كليا وركرنا وحويا آد بد مهد سنتين إلهي يجا نجسا خير إلهي خسي جسا يا بالبضن روح صوماليات يا أبوانا صوماليات يا فنانين صوماليات يا علماء صوماليات يا أمة صوماليات وأنا إيماننا مجبتو ما شاء الله إيه أنا وحنا لأن أثبت من هالسنتين لا يتساوي كثير aad baad mahadsantahay jazaak allah khayr
wiilasha yaryar iyo gabdhaha yaryar kulli waa ummadii fanaaniintii gacanta ku haya weeyaan looma kala harin runtii waxa weeye dhinacyada kala duwan ee ay marwadu u mahad celinayso annaguna muxuu ahay waan u mahad celinaynaa waxaanu leenahay jazaakum allahu khayr runtii abwaanka waa la garab istaagay maanta ayaanu soo booqanay abwaanka waa abwaan maxamuud cabdilaahi sangu maxamuud cabdilaahi ciise sangu oo qaliil loogu sameeyey hosbitaalka rajab طayib erdogan ee magaalada muqdisho ama hore loo odhan jiray digfer abwaanku daryeelkiisa caafimaad alxamdulilah waxa weye waa la daryeelaya waa la garab taagan yahay keliya waxaan ugu baaqaynaa soomaalida meel kastoo ay joogto inay abwaankooda usoo duceeyaan abwaankan waxa weye abwaan in badan murtidiisa aynu muxuu ahaye ku raaxaysanay madadaaladiisa dhegaysanay xikmadiisu maskaxdeena in badan ka shaqaysay waqti badan la qaadanay xilliguu caafimaadka qabay maanta waxa weeye shayga ugu muhiimsan oo u baahan yahay waxa weeye waa caafimaad inaynu allah uga baryano inuu caafimaad siiyo in badan oo ka mid idinka waxaa laga yaabaa inay ku jiraan dad allah aanu baryadooda dib u celin marka abwaankeena qaaliga aynu soo ducayno faatixadan oo marno acuudu billahi min ashaytaan rajim bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أين الكون حينا وأن محمد عبد الله عيسى سقب وأبوان صوماليات ومدة صومالية ضرنا أي عشهاي عد كستانا ما أنت مركي حنون كيس أي مقشي أي دمقتي gaar ahaan aniga kula hadlaya dee waa guddoomiyahayga oo waa guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed marka si gaara ayaan uga damqanaynaa xanuunkiisa ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inuu caafimaad siiyo alla caafimaadka iyo cudurkaba haya marka xanuunka haya ilaahay dembi dhaaf ha uga dhigo caafimaadna ha ugu bedelo waa dadka indhaha ummadda u ah haddii alla ku run yahay dariiqa u tilmaamana ay maraan ummadda marka maanta waa xanuunsan yahay xaalkiisuna waa liitaa hase yeeshee ilxumo looma dhinto badbaadadana ilaahay baa haya sida qadiijo boqran sheegtay dadka aan u mahad celinayno abwaanka la dadaalay waxaa ka mid a wasiirka arrimaha gudaha jeegan waxaa ku qoran $1,500 oo $1,500 wuxuu yidhi abwaan maxamed cabdullaahi ciise sangu cabdi taaliil warsame iyo abwaan deeq oo jahla kala gaarsi marka oo mahad celinaynaa isagana cid kasta oo ummadeena dhibaataysan wax u tartana ilaahay ka abaalmariyo ayaan leenahay ruuxii samaan fala samaan waayi maayo samaantuu sameeyaa rabbi sama ku siiya waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu